السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا خيارت شرفتي قيمها له ومركل لي برنامج كسادي قبرتين وحياة عافمات كوكسابسل aan mar walba idinku soo gudbiyo. maanta waxaan idin qaybsanayaa babaasiirta ama baabasiirta. waxyaabaha baabasiirta keena, baabasiirtu maxay tahay, sidee looga hortagi karaa iyo calaamadaheeda. babaasiir waxaa la dhahaa xididada dhiig mareenka bani aadamku wuxuu leeyahay blood vessels waxa la dhaho. xididada dhiig mareenka jirka oo dhan ayay ku jiraan, waxayna isugu yimaadaan qaybta saxarada, meesha laga saxroodo ama saxarada ay kasoo baxdo ayay isugu yimaadaan xididadaas. marka xididadaas oo barara ama banaanka soo baxa ama gudaha ka barara ayaa la yiraahdaa baabasiir. baabasiirta maxaa keena? waxyaabaha baabasiirta keena, horta baabasiirtu waxaa la yiri dadka badanaa boqolkiiba 75 baabasiirta ayay qabaan ama kusoo dhacday. boqolkiiba 75 aad iyo aad bay u badan tahay. marka dadka badanaa baabasiirtu way qabaan ama way kusoo dhacday ama isma oga, dadka qaarkood isma oga, waayo noocyo badan ayay leedahay. qayb waa qayb banaanka soo baxda oo la arko, qaybna lama arko, gudaha ayay ku jirtaa. marka iga raali hada hergab xun ayaa yahay, marka dhunta ay cunaysa. so waxa lagu gartaa baabasiirta, maxaa lagu gartaa baabasiirta qofka uu qabo waxaa lagu gartaa cuncun fara badan. qaybta saxarada ee soo marto ayaa aad iyo aad ku cuncun fara badan. waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis xataa inuu dhiig ka yimaado, dhiig oo maaragtay saxarada dhiig soo raaca. dadka qaarkiis bararkii ayay arkaan saxarada baabasiirta oo soo baxda oo banaanka timaada oo la arko bararkeeda, xididadii oo dhiig ka buuxa ayaa banaanka soo dhaca. maxaa keena marka baabasiirta? sideedaba maxaa keena baabasiirta? waxaa keena waa fadhi badan. dadka qaarkiis fadhiga badan ayaa u keena. haddii aad tahay qof shaqadiisu ay tahay maanta oo dhan inuu fadhiyo, waa laga yaabaa inay baabasiirta ay timaado, waayo xididada ayaa dhiig kusoo aruuraya. dadka qaarkood waxaa u keena jiimka, waxay qaadaan biro ama waxyaabo aad u culays adoo qaaday. haddii aad meesha aad pressure saarto ama xoog aad saarto, xididada dhiig way bararaan. bararkaas ayaa keena. dadka qaarkiis hooyooyinka oo kale oo uurka leh, maadaama ilmaha uurka caloosha marka bilaha ugu dambeeya ay soo cuslaadaan, pressure ayaa saarma. pressurekaas ama xoogaas ayaa u keeni kara hooyooyinka. waxaa kaloo keeni kara qof musqusha ku daaha oo kale. dad waxaa jira musqusha saxaradu ay ku dhigto oo kale, constipationka oo kale. qof dadka saxarada ku adag maanta oo dhan soo riixaya, taasna pressure ayay keentaa. pressureka ayaa maaragtay ayaa u keenaya maanta oo dhan saxarada musqusha ay ku jiraan ay soo riixayaan. maxaa maaragtay looga hortagi karaa? waxyaabaha horta lagu daweeyo, mar walba waxaan idinkula talinayaa inaad dhakhtar la xiriirtaan. mar walba dhakhtarkiina la xiriira. dawo way leedahay, qaarna waa operation baa lagu sameeyaa oo waa la jaraa, qaarna kareemooyin ayaa jira oo la mariyo oo xanuunka zaa'idka faraha badan kaa joojiya iyo bararka joojiya. laakiin waxaa kaloo adiga aad isticmaali karto oo gurigaa ku isticmaali karto. waxaa kamid ah, horta waxay ku xiran tahay waxaa kuu keenay. haddii uu kuu keenay constipation ama caloosha ay kaa xiran tahay oo baabasiirta saas ay ku timaaday, waxyaabo jilicsan cun oo caloosha ku jilcisa si ay saxarada si fudud ay kaaga soo baxdo. waayo haddii aad saxaro mar walba aad riixayso, xididada pressure ayaa saarmaya. marka saas darteed ayay baabasiirta kugu dhacday markii horeba. so caloosha wax jilicsan cun. haddii aad tahay qof maaragtay oo jiimka ku jiro, waxyaabo aad u culus oo tankaaga aan ahayn haddii aad qaadaysidna, waxaas iska yaree. haddii uu ku keenay, dadka qaarkiis cayilka ayaa u keena, culayska pressureka. qofka hadduu aad u culus yahay, xididada dhiig ayaa kusoo aruuraya, marka cayilka iska rid. haddii uu maaragtay waxyaabahaas aan kasoo hadlay uu ku keenay, intaas ayaa lagu daweyn karaa. haddii waxyaabaha natural aad rabto inaad ku daaweyso, waxaad ku daaweyn kartaa dacarta oo kale. saliid qumbaha dacarta ayaad marsan kartaa. dacarta haddaad mariso ama saliid qumbaha aad mariso,
aad bay maaragtay u daweysaa bararka iyo cuncunka iyo waxaas ayay ka baabi'isaa iyo cusbo waxaa jirta la dhaho Epsom salt. Epsom waa EPSOM. cusbadaas ayaad biyo ku dhex shubaysaa, ku qasaysaa oo ku dhex fariisanaysaa. cusbadaasna aad ayay ugu fiican tahay cuncunka iyo maaragtay bararka iyo waxaas iyo xanuunka fara badan iyaduna aad bay ugu fiican tahay. marka mar walba waxaan kula talinayaa inaad dhakhtarkiina la xiriirtaan insha Allah tacaala. intaas ayaan la qaybsanayaa, walaalahaaga la qaybso, familkaaga la qaybso. waa inoo iyo next video insha Allah tacaala. jazakallah, assalamu alaykum.